shirkii u socday madaxda dowlad goboleedyada ee magaalada Muqdisho oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday. Madaxda dowlad goboleedyada ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay kulamo kala duwan ku lahaayeen magaalada Muqdisho. Kulamadaas oo ay ugu hadlayeen xalka gaarista khilaafka doorashada iyo qabsoomidda shirweynaha looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Wararka soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxda dowlad goboleedyada ay isku mari waayeen qodobo ay ka mid yihiin ajandaha shirka iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo weli dalbanaya in shirka la ballaariyo ayna ka soo qayb galaan midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare. Intii ay socdeen maalmihii la soo dhaafay kulamada ay waxa jiray is-afgarad ay gaareen maamul goboleedyada, hase yeeshee waxaa soo baxaya ismariwaa ka dhashay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada shanta ah. Xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa xilligan waxay maraysaa meel xasaasi ah, waxaana qabsoomi waayay shirar dhowr ah oo loogu ballansanaa in lagu qabto magaalada Muqdisho si xal loogu gaaro khilaafka doorashada Soomaaliya. Waxaana haatan ay noqonaysaa markii saddexaad uu qabsoomi waayo shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada, isla markaana lagu waday inuu ka qabsoomo teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho.